iyadoo in ka badan ilaa iyo 9 ruux oo dadka rayidka ee ku nool degmada Marka ay toogteen ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa salaadiinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanadaasi waxay ugu baaqeen dawladda Soomaaliya inay wax ka qabato arintaasi. waa kana Suldaan Fiqi Sayid oo kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed oo arimahaasi ka hadlaya. waxyaabaha inta badan aan dareemayno hadii aanu nahay simadii oo mar walbana aan tilmaamayno dadka ajnabiga ah ay ku yimaadeen arimahan maaragtay xasilinta dib u dejinta ka qayb qaadanayaan yeysan ka mid noqonin dadka runtii taariikhda baalmugdiga ka gala waa in kaalintooda iyo waxa loo qorsheeyay loogu talagalay iyo area loogu talagalay inay ku ekaadaan aysan noqonin maalin walba maaragtay dad masaakiina ama dad maaragtay shacab Soomaaliyeed baa la xasuuqay ama la barakiciyay runtii taasi ma soo dhaweynayno waxaan aad u dareensanahay maadaama ay adduunkoodna indhaha ku hayaan arintan kaalinta ku quman ayagu birina lagula xisaabtami doono insha Allah inay ciyaaraan runtii aysan ku imaanin waa lagu fududaaday iyo dadkaasi dhibaatadaas ay ku timid magaalooyinka qaar kamid ah sida Baardheer oo kale wallahi waa arin runtii nasiib daradeedu ay leedahay muuqaal ahaan markaan arkay aad baan uga naxay in la leeyahay guluf baa ku soo socda oo maanta inta la eg inay maanta wadada hadana mar kale galaan tii waxaan soo xusuustay waagi ilaa iyo Kenya dadku ay maartay ku umul jireen wadooyinka oo ay ku baabi'i jireen oo caruur badan looga tagay war waxaan leeyahay arinta qofka Soomaaliga muwaadinka islaamka ah arinta dhinaca kaga ma aadana oo inuu arinta wax ka taliyo waxaan leenahay qaab kasta way kasta ama maartay si kasto loo xallin karo in loo xalliyo maatada in halkoodii lagu daryeelo dib loogu soo celiyo haddayan markii hore qof walba soo gurigii jooga uusan ku haysan nolol dhameystiran in maanta la yiraahdo ilaa iyo maartay intay ku gaarsiiso wadada carruurta halka wadada la gala marka runtii nama qabato aniga iyo dadka mas'uuliyiinta waxaan farayaa arinta dhinac walba in laga eego xigmadeedii la raaco dadka barakaca laga joojiyo halkoodii lagu soo celiyo dagaaladana waxa weey mar walba in waxaan ku baaqayno in nabad lagu marto lagu bedelo waxyaabaha tafaraaruqa iyo isdiidmada iyo waxyaabahana in heshiis iyo isu tanaasul lagu bedelo waa waxyaabahan leenahay Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane TV-ga Home Cable magaalada Muqdisho.